todobada sanadood waxaan u saneeyay oo xaalad kasta soo maray marnaba isma dhiibin nolosha marnaba isma dhiibin maalin isma dhiibin isagoo xaalad kasta ku jira oo mararka qaarkood aanan xitaa adag tahay sidaan u sheego xaaladii ku jiray iyo dawadu qaadanayay iyo sidoo tabcaan u ahaa ayuu haddana dul fadhiyay kombiyuutarka si uu isaguna dareenkiisa u sii daayo oo u heshado laftiisa. waa Shukri Xasan Ibraahim oo ka dhabaynay sarriyadii lamaanaheeda oo geeriyooday 6 bilood ka hor waxaana ay bandhigga buugaagta Hargeysa Book Fair ay ku soo bandhigaysaa buug ciwaankiisu yahay kansar haquusan oo uu qorayay muddo 4 sano ah sayga Shukri oo lagu magacaabo Axmed Cawil Dirir kaasoo 7 sano ka hor uu ku dhacay xanuunka kansarka ugu dambeynna ugu geeriyooday ka hor intii aanu bulshada la wadaagin buuggaasi oo uu ku qoray waayo aragnimadiisa xanuunkan iyo cilmi baadhiso badan oo uu ka sameeyay. buuggan waxaa qoraalkiisa la bilaabay Axmed bilaabay qiyaastii wuxuu bilaabay 2017 ama 16 aakhirkeedii. Axmedna xanuunka waxaa lagu sheegay 2014 markuu Axmed uu arkay baahida ay bulshadeenu u qabto xanuunka kansarka iyo warbixin la'aanta ka jirta gaar ahaan dadka ku hadla Soomaaliga oo qora ee aan luqadaha kale aan maartay qorin ama akhrin ayuu wuxuu jeclaystay inuu waayo aragnimadiisii uu xanuunka inta la soo noolaa iyo baaritaano aad u fara badan oo uu sameeyay dhakhaatiir aad u badan oo uu la kulmay xagga diinta lafteeda nin aad diinta ugu wanaagsan buu ahaa Allahu naxariista Axmed markaas ayuu jeclaystay inuu qoro buuggan kansar haquusan si uu u noqdo tixraac dhaxal wax qof xanuunsanayana uu weheshado warbixintii uu u baahnaana in macquul ah uu ka helo. wuxuu buuggani dhamaystirmay December 2020 bil ka hor dhimashadiisii Axmed Allahu naxariiste. buuggan tacab badan baa galay kuma saabsanaa xusuus qor ma aha qof iska muuqan noloshiisii wuxuu ku dhacay iyo maartay laakiin wuxuu ku saabsan yahay waxyaabo fara badan oo ay kamid tahay sidee buu qof xanuunsanaya ula maartay tacaala xanuunka haya wuxuu isku caawin karaa ama cunto ha ahaato ama dhakhtar ha ahaato ama ha ahaato inuu dareenkiisa iyo sidoo uu maartay maareyn lahaa ama dadka ku hareeraysan ha noqoto meelo badan buu buugu taabanayaa. waxaan rajaynayaa intii waxaan hubaa Axmed intii Allah u naxariistay uu awoodiisa ahayd iyo ka badanba uu geliyay buuggan kansar haquusan laakiin maanta waxay maraysaa markii aynu inagu bulsho ahaan fariintii uu inoo soo gudbiyay aynu akhrin lahayn oo weelayn lahayn hadii Ilaahay idmo. waxaan aad iyo aad u jeclaysanayaa samaynayaana haddana aan tani ay ugu horeysaa bandhigani inaan riyadiisii ka dhabeeyo hadii Ilaahay idmo oo aan gaarsiiyo fariintii uu buugu xambaarsan yahay qof kasto ay khusayso. buuggan oo marxalada adag uu ku qoray qoraagu xilliyo kala duwan oo qaarkood xanuun xoog leeyahay ayaa waxa xaaskiisa oo gaarsiinaysa dadkii ugu tala galay inay ka faa'iideystaan maadaama dadku aanay aqoon badan u lahayn xanuunkani waxay bulshada u dirtay fariintan. Amaru Axmed yimid Allahu naxariiste halkan yimid 2019 oo la xiriiray dad badan oo dhakhaatiir ah isagoo baaritaanka buugga qoridda wada oo uu ogaaday inaanay jirin wax dhakhtar u gaara dadka kansarka qaba daweyntiisa la tacaalidiisa la talintiisa wax alaaliyo wax maaragtay way jiraan wadamada kale Itoobiya meelaha waa loo diraa laakiin wadankeena inay aad ugu yar yihiin marka wuxuu jeclaysanaya anaguna muhiim aan u aragnaa Axmedna jeclaysanaya Allah u naxariisto inuu buugga kan meesha ugu horeysa ee lagu bandhigo uu noqdo Somaliland Hargeysa. waxaan markaan si wanaag isla helnay anagoo buugga bandhigidiisii la jeclaysanay wadanka oo nimid hawlo kale oo nimid iyadoo book fairkii uu nagu soo beegmay waxaana noo suurtageliyay Ilaahay ka maartay waan aad baan uga mahadnaqayaa Jaamac Muuse Jaamac oo la xiriirnay aabe qoraa Faarax Maxamuud qoraaga qoray saxarla iyo buug kale badan ba xusuus qor ba iyaguna aad iyo aad qayb lixaad ka qaatay inay suurtoodo inaanu ka soo bandhigno. waa markii ugu horeysay la soo bandhigo buug af Soomaali ku qoran oo ku saabsan xanuunka kansarka iyo sida loola tacaali karo laguna soo bandhigo deegaanada Soomaalida. waa Idris Bershiye, telefishinka Universal.
Hargeysa.